Videogan waxaan kuu tusi doonaa qaabka WhatsApp live chat loogu soo daro website-kaada. Haddaba videogan waxaan kuu tusi doonaa qofka markuu soo galo website-kaada isla markiiba 5 second kadib in WhatsApp-kaada uu soo muuqdo qofka uu halkaasi u kala soo xiriiro. Si aan tan u sameyno waxaan qaadi doonaa kaliya 2 step. Step koowaad ayaa ah inaan soo degno plugin-ka. Okay, marka qaybta backend-ga website-kaada aad tagto waxaad dul tagaysaa plugins kadib waxaa leedahay add new. So add new marka dhada meesha waxa ku qoraysaa marka plugin loo yaqaan WhatsApp la iskaga qor. So plugin-ka u baahanaa waa kana marka waa midkaan 500 kun qof soo dejisatay. So marka waxaa leedahay markaas install now. Kadib waxaa dhahdaa markaas activate. Step-ka labaad ayaa ah inaan setup gareyno plugin-ka. So waxa ujeedaa marka plugin-ka inuu inta ka soo muuqanayo sidoo kale dhinaca bidixdan inuu ka soo muuqana. So xaggaasaan ku dhufaneynaa marka ama haddii kale meeshan kale ee setting-ka aan waa ku dhufan kartaa oo isku mid. So plugin-ka sidaan ayuu noogu soo baxaa marka. So marka koobaad meeshaas waxaad gelisaa kor marka telefoon ay ku qoran tahay numberkaada. Mar walbana waxaad ka bilaabaysaa 06 ayaad ka bilaabaysaa 1. So marka intaas aad geliso waxaa dhahdaa meeshaasna sidoo kale wadankaada ka dooran kartaa. So aniga hadda Soomaaliya jooga asiga qaab automatic ah u soo qabtay. So marka waxaa dhahdaa test number. So marka saa u jeedo WhatsApp-kan waa midkeeda soo waa isku hubinaysaa soo qofka dhowsan markaasi number qaldan u galin. Marka intaas aad sameyso wax yar hoos soo deg markaasi. Meeshan ay ku qoran tahay call to action marka horteeda waxaa sameysaa qoraalkan waa bedeli karnaa qofka marka WhatsApp ku dhufto fariinta yar ay soo boodaysaa oo marka waxaan ka dhigi karnaa kaba soo qaad Soomaali ahaan aan ka dhigaynaa oo intaan hal mar iska tirayna waxaan leenahay markaasi sidee baan ku caawinaa. Marka intaas aad sameyso sidoo kale meesha marka waxaa sameyn kartaa midabka waa ka bedeli kartaa. So midabkiisa hadda iska dhaafayna hadhow aan ku tusaa si loo bedelo. Sidoo kale meeshan header-ka oo leeyahay waxaan dooranaynaa WhatsApp logo oo powered by waa iska qarinaynaa. So marka intaas sameyso waxaa dhahdaa save changes. So marka hadda tab cusub ayaan furaynaa marka waxaan booqanaynaa website-keena in WhatsApp markaasi uu ka soo muuqanayo in kale. Good, saa u jeeda marka meeshan ayuu hadda ka soo muuqdo WhatsApp-ka haddaan ku dhufano qoraalkii waxyaabahaas oo dhan. Marka xigta aan aragna qaabka color-kan loo bedelo. So saa u bedelna qaybta backend-ga ayaan tagaynaa. Marka koobaad waxaan bedelaynaa meeshan ay ku qoran tahay button delay-ga oo goorma ayuu soo muuqanaa. Waxaan leenahay 5 second kadib ha soo muuqdo WhatsApp-keena. Sidoo kale meeshan theme color ay ku qoran tahay waxaan ka bedelaynaa midabka oo qofka markuu ku dhufto uu soo baxayo macna. Marka intaas sameyso waxaa dhahdaa save changes. Okay, page-kan ku soo laabanaynaa marka waxaan leenahay marka refresh aan leenahay inay wax isbedelay in kala fiirinaynaa. So marka haddii aan bottom-ka hoose aan ku dhufano good waxaa ujeedaa marka in uu isbedelo waa qoraal midabkii iyo waxyaabahaas oo sidoo kale 5 second inaan sugeynay. So marka qaabkaas aad WhatsApp chat ugu soo dari kartaa website-kaada. Ugu dambeyn haddii aad u baahan tahay inaad barato qaabka loo dhiso WordPress plugin website oo async loogu xiro website-kaada kadibna halkaas lacag looga sameeyo waxaan haddaba ka diyaarinay koorso taas oo aad ka helayso markaasi website-keena iyo si la mid ah iyo website-ka Udemy. Labada link waxaan dhigi doonaa qaybta description-ka ee videogan halkaas ayaad ka arki kartaa. Si la mid ah haddii aad u baahan tahay in website lagu dhiso nooca doon ha ahaadee waad ila soo xiriiri kartaa. Haddii aad wax su'aal ama caawinaad u baahan tahay si la mid ah waa ila soo xiriiri kartaa. Soo khayr badan.